Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhowaada barnaamijkeena maanta. Barnaamijkeena maanta waxaan uga hadlaynaa dhulweynaha Ruushka iyo xogaha ku saabsan dhulweynaha Ruushka. Dalka Ruushka. Ruushku waa dalka ugu weyn dunida ee maanta jira. Dalalka maanta jira waa dalka ugu weyn Ruushku. Ruushku badkiisu wuxuu ku fadhiyaa 17,225,190 kiiloomitir oo isku wareeg ah buu ku fadhiyaa. Ma jiro dal la barbar dhigi karo. Waa dal ku yaalla qaaradda Yurub iyo qaaradda Aasiya labadaba. Inkastoo qaaradda Aasiya uu weyn yahay, wuxuu daris la yahay in ka badan 13 waddan oo Yurub iyo Aasiya iyo xitaa Ameerika ku jirto ayuu daris la yahay. Ruushka ayaa sidoo kale ah dal laga isticmaalo waqtiyo kala duwan. Tusaale ahaan, time zones waqtiyada loo yaqaano wuxuu leeyahay 11 waqti oo kala duwan buu leeyahay. Tusaale, dhulka Ruushka meel ka mid ah haddaad joogtid, waxay ka dhigan tahay meel inay habeen tahay, meel inay maalin tahay, meel inay galab tahay, meel inay maraso casar maraso. Sidaa darteed, Ruushku wuxuu leeyahay 12 waqti oo kala duwan. Ma jiro dal leh noocaas oo kale. Sidoo kale Ruushku wuxuu uu leeyahay waa waddanka labaad ee ugu awoodda badan dunida. Ruushku marba wuxuu soo maray inuu ahaa waddanka koowaad ee ugu awoodda badan dunida xagga horumarka tiknoolajiyadda iyo ciidanka iyo dhaqaalaha. Xilligaasi waxay ahayd wixii ka horreeyay 91. Ruushku wixii ka horreeyay wuxuu ahaa Midowgii Soviet. Midowga Sovietna wuxuu ahaa haddii Ilaahay ku idbahayo dhulweyne. Hadda dalalka maanta jira oo ka baxay waxaa ka mid ah oo xilligaas ka tirsanaa dhulweynihii Midowgii Soviet: Kazakhstan, Ukraine, Belarus, Finland, haddii Ilaahay ku idmahayo Latvia, Lithuania, Estonia, Moldova. Wadamadaas oo dhan waxay ka mid ahaayeen wadamadii ka midka ahaa Midowga Soviet. Laakiin hadda wuxuu noqday waddanka ugu weyn caalamka ee waqtigan jira. Tan iyo wixii ka dambeeyay 91, wixii ka horreeyayna asaga ahaa, wixii ka dambeeyayna asaga ahaa. Daawadayaal, Ramadaan Kariim. Kusoo dhowaada barnaamijkeena mar labaad iyo mar saddexaad. Fadlan subscribe noo saar.